yaa ku gacan sarreeya dagaalkii ka dhacay maanta Dacawaale. Warbixinteenan waxaan ku faaqiideynaa dagaalo dhiig badan ku daateen oo maanta labadiisii galin ka dhacay deegaanka Dacawaale ee hoostaga degmada Xarshin ee deegaanka Soomaalida. kama duuli doono xoga qaldan warbixinta saxda ah iyo sida ay wax u dhaceen ayaan se ku tabin doonaa daqiiqadahan soo kulaalaya cid gaar ahna ma qusayso warbixinteena inta aynan guda galin dagaalka xoogiisa maanta dhacay halkee ayay dhibtu ka bilaabatay in muddo ahba waxa soo taagnaa muran dhuleed oo u dhaxeeya beelo walaalo wadaadega aaga gaar ahaan jifooyinka kala tirsan beesha Reesaaq iyo jifada Arabka oo wadaadega halkaasi xurguftii waxay muddaba soo taagneen waxa ay isbuucyo ka hor maleeshiyaad ka tirsan beesha Arab ay ku dileen duleedka Dacawaale hogaankii nabadgelyada Yoocaale xilli uu tagay goobta isagoo howlo nabadeed u tagay balse ciidamo maleeshiyaad ku sugnaa goobtaas ayaa huuyay rasaas halkaasna waa uu ku geeriyooday hogaankii amniga degmadaas Yoocaale waxa arrintii soo farageliyay taliska ciidan ee deegaanka oo amray in arrinta si dhab loo dhameeyo khilaafka jiraana la soo afjaro halka beesha Arabna lagu amray inay soo dhiibaan maleeshiyaadkii dilka geystay balse waxay xilligaasi jawaab ka dhigeen inaan shaar dawladeed loo soo xirano ciddii awood haysa ay u soo bareerto reerkooda wiilasha dilka geystana aysan keeni doonin maalmo kadib ciidamo ayaa lagu dalbay kuwaas oo bilaabay inay burburiyaan dhismayaal ay dadka deegaanka ka dhisteen goob ay markaasi maamulka ku sheegeen inay sharci darro ku deegaameeyeen dhismayaalna ay ka dhiseen oo ahayd halka ay sartuba ka qurantay beesha Arab oo horay gadood badan u tirsanaysay ogana tirsanaysay maamulka ayaa hoosta ka sii xariiqatay inaysan bajirin wanaag dambe oo soo socda bal ee ay diyaar u noqdaan dagaal iyo indhiig badan daato waan ayaa bilaabatay maamulku wuxuu isku dayay inuu tanaasulaad badan sameeyo isagoo xoogaa ka soo yaray dabacaya meelihii qalafsanaa ee ay taagnaayeen markii hore iyadoo heer deegaan ay ka socoto xallinta arrintani ayuu haddana maamulka gobolka Jarar hoosta ka shidayay dabka isagoo marwalay doonayay inaysan isa seegin beelaha walaalaha ee wadadega halkaas bal markaasi ma dhicin dagaal foolka fool ah oo u dhaxeeya labada beelood arrintii oo taagan ayaa ciidamada deegaanka la geeyay Dacawaale halkaas oo la yiri beelaha mindiyaha isku afeysanaya kala dhex jooga oo cidna ha u xaqlinina amnigana ku suga halkaasi sargaal watay ciidan iyo xubno maamulka gobolka ayaa shalay bilaabay inay cagaf galiyaan dhul la calaamadeeyay oo loo kala xadeeyay labada reer halkaas oo la yiri midaba kiisa kale ma soo dhaafi karo inta xaaladda la dhameynayo balse beesha Arab ayaa markaasi qoonsatay cagaftaasi lagu baneynayay dhulka oo ay sheegeen in lagu soo xadgudbayo halkii la calaamadeeyay in ka badan looga soo dhaadhacay dhankooda ciidamadii liyuuga ee ku sugnaa halkaasi ayaa kala didiyay dhalinyaro damacsaneed inay arbushaan shaqada ay cagaftu ka qabanaysay halkii balse qolyaha beesha Arab dagaal u joog ayay ahaayeen hub ayay durbadiiba la soo baxeen iyagoo ciidankii halkii kula dagaalamay dagaal goosgoos ah oo labadii gelin ay shalay socday ayaa ka dhacay halkaas waxaana halkaasi ku dhintay 2 askari oo ka tirsan ciidanka deegaanka iyo 2 kale oo ka tirsan maleeshiyaadka beesha Arab halka dhaawacyo dhowr ahna uu jiray dagaalkii shalay arrintii waxa maqlay oo lagu wargeliyay taliyaha ciidanka deegaanka Generaal Cabdi Cali Siyaad Gafaade oo hayb ahaan ka soo jeeda beesha ay Arab ku tuhunsan tahay in shaarka dawladeed ay u adeegsanayso waa beesha Reesaaq ee xukunka joogteen Gafaade wax xeerin ah ma uusan sameyn balse amar degdega ayuu ku bixiyay in cagta la mariyo maleeshiyaadka ciidamada laayay isagoo markaasi adeegsanaya luuqad adag oo ugu yeeray maleeshiyaadkaasi koox argagixiso ku soo duushay deegaanka 3 guuto oo ciidamo liyu booliis ah ayaa ilaa xalay laga daabulayay magaalooyinka Jigjiga Dhagaxbuur ilaa Yoocaale kuwaas oo guutadii ugu horeysayba ay afka isaga shubtay tuuladii Dacawaale qolyahan beesha Arab ma xog la'ayne way ogaayeen in culweyn ku soo socdee waxay iyaguna sii diyaarsadeen ciidamo u bawac dhigi kara ciidamadan guuraha ku soo aaday tuuladoodii hiirtii waabri ee Saaka ciidamadii liyuuga ee ka soo gudbay Yoocaale iyo kuwii beesha Arab ayaa isku haleelay duleedka tuulada waxaana dhacay dagaal xilli horeba geeri badan dhaliyay dhaawacyo badanna looga kala tagay goobtii ciidamadii liyuuga ee markii hore weerar ka qaaday iyo kuwii dambe ee gurmad ahaanta ugu tagay isma aysan gaarin
oo way kala fogaayeen walow markii hore ciidamadu ay sahalsadeen dagaalka oo ay dhayal ku galeen balse dib ayay arrin kala cuslaateen guutadii ugu horeysay ciidanka ee uu hogaaminayay madaxa dambi ka hortagga gobolka Jarar Korneyl Maxamed Yuusuf Cuuke iyo ciidankiisii waxa ay la kulmeen iska caabin xoogan ilaa uu dhaawac halis ah ka noqday Korneyl Cuuke oo loo soo dhigay dhanka ah iyo isbitaal ku yaala Yocale halkaas markay arrin taagan tahay dagaalkuna sii kululaaday ayay ciidamadii deegaanku gurmadkii raacisii labaad direen balse waxaa soo dabamaray ciidamo ku hubeysan 22 tikniko oo beesha Arab ay ku diyaariyeen xadka kuwaas oo ciidankii gurmad ahaanta ahaa meel dhexe uga soo dusay oo iyagoo warma qabta ah dhinac kasta kaga keenay rasaastii halkaas ayay samariye dhiig kala furteen labada dhinac qasaaraha ugu badan ciidamada deegaanku wuxuu ku gaaray dhabar jabinta iyo gurmadkan la kala jaray ee ay ciidamadan keedka ah ay soo galiyeen beesha Arab xitaa ciidamadii deegaanku gaadiid dagaal ama tiknikaad ma aysan wadan markaas gaadiidka ciidanka lagu raro ee dusha ka feedan ayay badanaa saarnaayeen waxaana dagaalkan dacwareenka ah ama soo boodada ku geeriyooday Korneyl Deeq Cali Biixi oo ka mid ah saraakiishii horboodayay ciidankaas ciidamadii gudaha ku jiray gurmadkii gabaabsi ayuu ka noqday kuwii ay gurmadka ka sugayeen dhaxda ayaa loo galay oo waa la kala jaray raaci saddexaad oo ciidamo culus ah ayaa ku baxay oo xoojiyay ciidamadii ku dagaalamayay dacwale waxaana halkaasi ka dhashay qasaarihii ugu xooganaa iyadoo dhimashadu ay sii cagacagaynayso ilaa 60 qof oo labada dhinac ah galinkii dhexe ee maanta beesha Arab markii ay arrini ku kululaatay waxa ay garbaheeda ka filatay beelaha kale la dhashay ee Isaaq kuwaas oo dagaalka duhuradii soo galay si weyn uga qayb qaadanayay haba ugu badnaadaan beesha ciida gale iyo sidoo kale beesha Habaryonis gurmadka dhinaca beesha Arab balli gubadle ilaa Hargeysa waa u haystaa dhaawacyadana waxa loo daabulayay ilaa Hargeysa halka sidoo kale ciidamada deegaanka dhaawacyadooda loo soo qaadayay degmooyinka Yocale dhagax buur ilaa Jigjiga dagaalka gabalka ayaa ugu dumay walina lama kala food qaadin waxaana ciidamada deegaanku markaan u imaanayay gurmad culus iyo hub culus kuwaas oo xoojinaya ciidanka ku sugan furumaha saddex sargaal oo ay ka mid yihiin Korneyl Deeq Cali Biixi Korneyl Xasan Cali iyo shaalaqa kale ayaa ilaa iyo haddana loo xaqiijiyay geeridooda halka dambi ka hortagii gobolka Jararna uu yahay dhaawac culus tirada ciidamada ka dhimatay walina looma xaqiijin halka dhinaca kalena aan ku raajoogno xogteeda wixii ka soo kordhaa wararka dagaalka warbixinada yada dambe ayaan ku faaqidi doonaa idinka eebe